ninkan dharka casota wuxuu u muuqdaa mid la dagaalamaya xaskan awoodda badan. yaxaasku aad ayuu u taxadarayaa waxaana uu kaliya sugayaa in afkiisa ay wax soo galaan si uu isla markiiba u burburiyo. taageerayaal badan ayaa ciyaartan daawanaya, qaarkoodna taleefannada ayay ku duubanayaan dhacdadan la yaabka leh. ninkan waxa uu ka soo jeedaa waddanka Thailand, wuxuuna ka qayb galayaa bandhigga ugu halista badan adduunka iyo shaqada ugu adag ee la isku raacay. ninkan waxa uu u tababaran yahay yaxaasku waxa uu awoodaa inuu isticmaalo xeeladihiisa gaarka ah, halka ninkan uu isku dayayo in taageerayaasha uu soo jiito. yaxaasku aad ayuu u taxadarayaa waxaana uu kaliya sugayaa in afkiisa ay wax soo galaan si uu isla markiiba u burburiyo. taageerayaal badan ayaa ciyaartan daawanaya, qaarkoodna taleefannada ayay ku duubanayaan dhacdadan la yaabka leh. ninkan waxa uu u tababaran yahay sida loo khiyaanayo yaxaaska. usha uu ku hayo gacanta midig ayuu ku riixayaa qaybta sare ee madaxa yaxaaska. tani waa ciyaar argagax leh. kani waa 21 jir doonaya inuu sameeyo bandhigga ugu halista badan adduunka. marka hore gacanta ayaa la geliyaa, kadibna si dhaqso ayaa looga soo saaraa, xilli yaxaaskuna uu khatar badan abuuri karo. inkastoo wiilka yari uu samayn doono dhacdo kaa yaabin karta, haddana yaxaaskan ayaa loo tababaro oo keliya xawaaka si uu ugu yaraan yaxaaska afkiisa uu isugu daboolo. xiddigga ciyaartan waxa uu ruxayaa gacantiisa isaga oo soo jeedinaya daawadayaasha bandhiggan si uu u soo jiito. markaad ciyaartan oo kale ku jirto waxay u baahan tahay geesinimo. waxaad ku weyn kartaa qaybo ka mid a xubnahaaga, waxaanay u baahan tahay xeelad iyo nasiib si aad uga guulaysato yaxaaskan. qiyaas ahaan waa markii afaraad ee uu wiilkan yar samaynayo tijaabadan. hadda diyaar ayuu u yahay bandhiggan si uu u soo jiito dhammaan daawadayaasha una qanciyo tababarihiisa. laakiin nasiib xumo, tani qayb kama aha ciyaarta. yaxaaskan caraysan ayaa isla markiiba sameeyey xirfadiisa u gaarka ah, saamaynta burburka lafaha. waa halka dhibaato ee naxdinta leh ee uu muuqaalkan xambaarsan yahay. taasina waa xeelad u qaasa yaxaaska oo u adeegsado duurjoogta si uu lafahooda u kala jebiyo. haddaba daawade, haddii aad muuqaalkan daawatay, ma isku aamini lahayd in yaxaasada noocaani oo kale ah ay degdega badan aad dadka hortooda kula ciyaarto? magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho. la wadaag saaxiibadaada oo muuqaalkan like saar. aad iyo aad u mahadsan tahay.